السلام عليكم maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha May sanadka 2022 waxa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulan salaan iyo booqasho ah ku wada qaatay madaxweynaha xafiiska jooga mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeynba waxay labada madaxweyne iska xog wareysteen xaaladda guud ee dalka iyagoo hoosta ka xariiqay sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada dib u dhiska dalkeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ugu hambaliyeeyay walaalkiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka loo doortay ee madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo alle uga bariyay in uu u fududeeyo mas'uuliyaddan culus waxa madaxweyne Farmaajo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ka codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dawladda cusub dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo dadaaladii horumarineed ee uu geliyay dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay guddi qabanqaabinaysa munaasabadda xilwareejinta guddigaas oo uu madax ka yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise waxaana uu madaxweynuhu faray inay si dhaqso ah munaasabadaas u diyaariyaan madaxtooyada qaranka ayaa dhanka kale u gudoontay madaxweynaha cusub ee la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhambaalo hambaliye ah oo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashadii 15 bishan ku qabsoontay caasimadda dalkeena ee Muqdisho dambaalada dalalka aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada nahay waxay ku salaysnaayeen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi waad mahadsantihiin Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa ها moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimaalow Center moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin Bimaalow